qeybteeni labaad ku hadal luuqada rabto adigoon baranin qeybteeni labaad ayaan saabsan yahay wuxuu ku xusan yahay qeybteeni labaad sidaad uga hadli lahayd luuqad walbo adigoon baranin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada kanaalkeena Aqriskeeda Media. Please hadii boqoshada ugu horeysay fadlan ha ka ilaawin inaad kanaalka subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto, share gareyso, aad baa u mahadsan tahay. maanta waxaan wadnaa waxaan kusoo sheegnay in uu qoraal ahaa qoraalkaaga uu ku bedlayay aad ka dhigan kartay rabto, laakiin tan waxay tahay inaad qoraalkaaga bedeli karto una hadine ku akhrin karo. qoraalka aad ku qoraysaa hadina wuxuu ka dhigayaa oo ku bedlayaa kadib uu ku akhrinayaa. ayaan wada Soomaaliga ayaa gelinaysaa, English ayuu ku bedlayaa, uu akhrinayaa. Soomaaliga ayaa gelinaysaa, Carabi ayuu ku bedlayaa, Carabigiina waa akhrin kartaa. muuqaalkan ayaan kugu tusin doonaa sidaad u samayn lahayd programka ayaan ku tusin doonaa. daawasho wacan. kadib waxaa imaanaysaa Google Chrome. mid walba isticmaasho, aniga midkan ayaan isticmaalayaa. dhinaca searching waxaan ku qorayaa Google Translate. markaan ku qoro go ayaan dhahayaa. kadib sidatan ayuu kugu soo baxayaa. meeshaan ay qoran tahay Englishka waxaad falaarta laweysaa luuqada rabta ayaa ka dhigan kartaa. luuqadaad rabto anaga hadda waxaan inuu saaran yahay English. intana falaartan aa laweysaa waxaa ka bedelan kartaa luuqadaad rabta ayaa ka bedelan kartaa. inta hadda waxaan inuu saaran yahay Soomaali. hadda kadib waxaan dhahayaa sidee tahay. kadib meeshaan ay sameecada ku qoran tahay ayaan labayaa, wuu i akhrinayaa. How are you? How are you? Okay, wuu akhrinayaa. oo kale magacaaga oo kale nemo. Name. Englishka meeshay ku qoran tahay ayaan waxaan u bedlaynaa Arabic. wuu akhrinayaa sidee tahay. كيف حالك? okay, wuu akhrinaa marka. magacaaga gelinaa adine. اسمك. okay, sadatan adarto cashir isqawaas u gelinaysaa oo English ah Soomaaliga ku bedlaa. waanu ku akhrinayaa Englishka. sidaasna ayaa kusoo bixsan kartaa. oo filaa in aad wax badan ka faa'iiday sidaad ugu fasiran lahayd Soomaaligaaga aad ka dhigan lahayd English una ku akhrin lahaa codka una ku fasiri lahaa. muuqaalkan hadda ka heshay waxa ka codsanaya inaad share gareyso, aad baa u mahadsan tahay. kulantii dambe xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.